الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. waxaan rabay inaan inii sheego saaka inaanu shir isugu nimi 17 murashaxiin oo xafiisyada madaxweynaha iyo madaxweynaha ku-xigeenka doorashada soo socota oo insha Allah u dhici doonta 8 January sanadka 2014 asmada anaga u filinay ay ku jidho qado si fiican baan u soo dhaweynay markay noo yimaadeen si wanaagsan oo niyad sameeyna waa ula hadalay markii aan fariisanay xafiiska madaxtooyada murashaxiinta waxa markii aanu si fiican u soo dhaweynay ka bacdi oo hadlay General Abdullah Said Samantar oo gudoomiye u ahaa hadalka u furay dabadeedna agendadii programkii ku yimaadeen waxa uu akhriyay murashax Ali Xaaji Warsame wuxuu ka koobnaa 4 qodob in si wada jira loo wada magacaabo guddiga hadda shaqeynaya oo guddiga ansixinta iyo xalinta khilaafaadka xildhibaanada beelaha iyo deegaamada laga soo xulay in la magacaabo guddi ismada ku midaysan yihiin oo marjaca in la aqbalo goobjoogayaal caalami ah oo kuwa gudaha iyo dibadda marka ay doorashadu dhacayso iyo in la sameeyo terms of reference loo sameeyo ama waxa la yiraahdo hawlshoodu waxay tahay say u qabanayaan guddiga ansixinta iyo xalinta khilaafaadka iyo guddiga ismada arrinta markay soo jeediyeen waan uga jawaabnay waxaan aqbalay 4 qodob 3 kamid ah inkastoo mid aan uga hadalay sidii caadada ahaan jiray sida hadda iyagu soo jeeseen oo sanahayn oo guddiga ismada markastoo doorasho ka dhacayso halkan ismadu nimanka beelahooda iyo deegaamadooda magacyada laga soo xulay oo odayaasha aqalada ka hooseeya ay soo xuleen ansixiya soo saxiixa markasta iyagu aan cidina u yeeran iyagu iskoodu yimaado bay joog jireen doorashooyinka ka horeeyay labada aan ka qayb galay labadaba iyaga joogay oo yimi iyagoo odayaashii dadka oo hadii wax looga baahdo marjac noqon kara marka lama dhex galo laakiin iyaga un baa iscilqaama baan u sheegnay tafaasiisha xogaalnimada anagu aan hore u naqinay guddiga goobjoogayaasha caalamiga aan horaan baa u codsanay oo wakiilka xogayaha guud qaramada midoobay laftiisa ka codsanay inuu noo yimaado haduu yimaadona beesha caalamka madaxdeeda kale oo Soomaaliya daneeya ama United Nations ka hadlay dawladaha safiiradooda intii imaan karta waa inay yimaadaan iyo interpeace oo democratic process kan geedi socodka dimuqraadiyadda Puntland qayb weyn ka soo qaadatay welina markii doorashada dhacdo dib loo bilaabi doono hadii alla idmo kala shaqeynaysay dawladda Puntland iyadana ay imaan doonto waa aqbalay terms of reference ga sagana waa aqbalay wax loo baahan yahay weeye inaan aqbalno laakiin magacaabida guddiga ansixinta iyo hadduu khilaaf jiro khilaafaadka dhaqan ahaan sharci dawladda iskale doorashada afraad way 3 doorasho hore dawladdii markaa joogay magacaabay waxay ku andacoonayeen doorashadii tan ka horeysay oo murashaxiinta aanu ka mid ahaa in 3 qof nala siiyay arrintaas ma jirto